Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso kusoo dhawaaw Taleex Media. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar saad ula socoto barnaamijyadan halkan ka soo dayno. Haddii aad hore inoola joogtayna fiidiyogan sii share garay oo la wadaag asxaabtaada. kusoo dhawaaw sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii 17aad. qaybta 16aad sheekada waxay inoo joogtay hadalkaasu si weyn ayuu odayaashii u saameeyay, waxaana asagoo cod jilacsan ku hadlaya jawaab gaaban ka bixiyay warsame. intaas waxay inoo joogay qaybtii 16aad. kusoo dhawaaw qaybta 17aad. wuxuuna yidhi waa suge, bal marka hore waxaan kuu qirayaa inaad hadal qaayo leh loona garaabi karo ku hadashay. waxaanse ku xasuusinayaa inaad dadaalkiina waxba ka naas caddayn, sababtuna waxay tahay waxaad nagu waaninaysaan inaan baranno sida afka Soomaaliga loo qoro, dhashiinana waxaad ku abaabinaysaan dhaqmadii shisheeyaha. haddaba walaalow, hanuunka iyo niyadsamida aad u qabtaan barashada qoridda afka Soomaaliga maxaad ugu kordhin weydeen noolaynta dhaqankiina, adinkoo marka hore ka bilaabaya inaad dhashiina ku barbaarisaan. sideedabase ma ogtiin inuusan shisheeyuhu naga tegin intaba ay joogaan dhalinyarada aan magaalooyinka ku arkay oo sida caddaanka ah u muujinaya inay dan ka lahayn dhaqanka qaayaha leh ee ummaddeena. dhibaato kama weyna haddaysan dhashaadu kaaga ekeen dhawaaqa, dhugmada iyo dharxilashada. markuu hadalkiisa xoogaa yidhaaba warsame wuxuu qooraansanayaa waa suge. asagoo hadalkii sii wata ayuu wuxuu yidhi, haddaba dhashiina fasahaaday aad ayay u waxyeeleynaysaa sharafta dadkiina. waxaana horey loo yidhi, buro foolka kaaga taal xanuun dartiis lama goyn karo, foolxumo daraaddeedna lama sidan karo. reer magaalka intooda badneed hadalkaas way u madax ruxeen. waa suge oo marka gartay in runta loo soo dhacay, raggiina is afgarteen, ayaa si wanaagsan uga faalooday hadalladii ku saabsanaa qoridda afka Soomaaliga oo uu dadka ka maqlay maalmihii magaalada uu joogay. waa suge wuxuu yidhi, inta aan magaalada joogay waxyaalo badan oo qoridda af Soomaaliga ku saabsan ayaan raadiyaha ka maqlay, laakiin waxaa si wanaagsan amuurta ii dhacsiiyey nin raadiyaha ka guuraabaya oo yidhi afafkii shisheeyaha oo iskuulka loo furay lana olayn jiray ujeedooyinkoodiyo isticmaalkooda ima dhicin. ayaantii dambeetana afka aabba iyo hooyo muddo 2 ayaamood markii alifka lay baray, akhbaartii lasoo qoray akhriskoodii ima dhibin, aqoonteenii aasnaydna iftiinkaa lasoo dhigay. amuurtan awalkeed ilaaha agaasimay, odayaasha taliyana amarkoodii waa fulay, akhyaartii lasoo xulay afka sidaan u soo qorayna waa lama ilaabaan inta axad ka nool yahay ummaddeena Soomaali. farxad iyo is-afgarad ayuu raggii maalintaas ku kala tegay. wax weyn ayaan u kala kordhay odayaashii labada dhinacba. markii la kala dhaqaaqay ayuu warsame sii sagootiyey saaxiibkiis waa suge. inta aysan ismacsalaamin ayuu waa suge yidhi, warsamo waad og tahay oo adiga iyo anigu weli ma helin meel aan xasil ugu sheekaysanno, sidaa daraaddeedna waxaan jeclaan lahaa inaan ballanno. maxaa yeelay waxaa lagu mahmaahay war waxaa lagu xalaaleeyaa ballan, xoolana bir badarna suus. odayaashii waxay ku heshiiyeen inay 7 kadib is arkaan beerta nasashada, sidaas ayayna ayaka wada faraxsan ku kala tageen. qaybtii 17aad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood.